isu imaatinada la isu imaado way iska farabadan yihiin laakiin isu imaatinkeena wuxuu ka mid yahay kuwa Ilaahay uu barakeeyay uma waxaan rabnaa inaan u mahad celino walaalaheen Amal Bank ciwaanka marka ay dooreen oo ahkaamul bay' ama ahkaamta ganacsiga runtii mowduuc aad muhiim u ah oo shaqada dadka haya aad muhiim ugu ah kasab iyo shaqo waxa ugu fiican bay'un mabruur bay'an khiyaano iyo dhagar iyo isdawamarin ayna ku jirin bal maanta ganacsateenu dib hay isugu noqoto bay'un mabruur miya bay'oodu mase waa bay' khish iyo khiyaano ah bal dib hay isugu noqdaan bal kuwa daawada keena daawadooda dib ha loo fiirsho bal qolada raashinka dib hay isugu noqdaano bay'un mabruur ma yahay bay'oodu raashinka ay keenaan bariiska iyo sokorta ay keenaan waa sidee tayadeedu waxa la cunahayo maanta Ilaahay baan leenahay subhanahu wa ta'ala waa aragteen cudurrada iyo amraadda iska socota oo dadka ku soo wada boodayay wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam shaqo la qabto waxa u fiican bay'un mabruur bay' loo samafalay oo si daacad ah loogu ganacsaday baa u fiican waxa kale u fiican biir waa amalu rajuli bi yadi wa meesha u socday qofka shaqada gacantiisa uu ka shaqaysto markaad wax kala gadanaysaan bay'i baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaad wax kala iibsanaysaan marxaati galiya oo waxa weeyaan muxuu ahaa marxaati u sheega marka ganacsigiina sidaas ayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala oo quraanka ugu sheegay ahadiista nabiga kaleey salaatu salaamna oo ugu sugnaaday waa saarab mursal maxamed kana tirsan ganacsatada Kismaayo gaar ahaan dahableyda waa u mahad celinaya Amal Bank waxyaabaha badan ee ganacsiga u qabatay ku mahadsan tahay xaadarada sheekhu uu noo soo jeediyay waa wax u baahneen waa arin naga maqneed oo hadda nagu soo kordhay ma sha Allah waana qaadanay taladiisii tusaalantiisa waxaan ka faa'iidnay ganacsiga wuxuu u baahan yahay aqoon wuxuu u baahan yahay in laga qayb qaato waxyaalaha ribada keenayo waxyaalaha faa'iidada keenayo qaasatan waad ku mahadsantihiin anaga ayaad noo daneyseen ganacsiga waan sameynaa oo waan ku jirnaa bas waxa naga maqan aqoon fara badan maanta waxaan aragnaa inay noo kordhay aqoon aad u fara badan waxaan aragnay ribo lagu gudu jiray oo maanta in badan dad badan ee maskaxdooda ka fiyoobay arkeen ganacsiga inuu u baahan yahay khibrad gooni ah iyo aqoon dheeraad ah